waaridku Mhm. dhalinyarta Soomaaliyeed ma ka dhisaan maskaxda ee wixii ka dhisaan afka Inuu cunuga hadlo, Soomaaliya that's true. cunuga Soomaaliya markuu yar yahay wuxuu kula hadlaa sidii qof weyn wuxuu rabo ku dhahaa afkiisa ma ka amaan helaysid laakiinse maskaxda kama dhisna maskaxdiisu funto waa asigoo ilmaha maskaxdiisu funto tahay so Yeah, bas haddana badhay waxaan dhihi lahaa qofkaas ilmaha dadka waaweyn wuxuu ka maqla bas uu ku hadlaya. haa sababta waxaa jira hadallo ay ilmaha lagu la ag hadlin haddii hooyadii iyo aabbihii ay isku feeraan ilmaha hortooda cunugii hadhowt wuxuu u dhaqmaa qof weyn camal sababta waxaasuu ku dhex koraa mafahamtay so ilmaheena waxa fiican in laga dhiso maskaxda dadka tiktok ku jirana intooda badan maskaxda kama dhisna afka le ka dhisan yihiin sidaas darteed ee wixii sheegayaan iyo waxa kale maba kala yaqaaniinba maba kala hubaanba Ma ogayi, they don't care more. yeah then Hadda fiiri wax muhiim marka ka hadlayna maaragtay like this qof hoos u soo qaara dhoosay iska dhax waa dhoosay saamistay kaasoo kale hadda fiiri maxaa ku sufay oo aabaha inuu iska jiifto drinkas inuu iska jiifto meena oday may waa caafimaad allaha dhoosada waa caafimaad maya waa iska qeyn marka ka hadashid inta u baxa qof waxa jira foodale u socdo inta qofkaas wasted spam waa inta biyo la saaro ya laakiin adigna dooni mid kale xasuusnaaw qasab maahan adduunka marka ku nooshahay waxa aad sheegayso qof walba inuu kugu raaco qasab maahan cross critics waa yeelanaysaa laakiin some serious issue marka ka hadlaysa like dadka inay this bullshit qabiilkan daba ordayaan inay ka haraan qof wuxuu dhahaa no no qabiilkan wadana that's cool yeah guys anigi iyo Don B waxa waaye waqti dheer qaban we are done حياته ان شاء الله marka la tawo maana in sha Allah asxaabtan salaamina we love you I wish you صاحب هل ريكوست يا قبا انت انا بخين لايف ka bixin request ya qaba okay guys shout out to حياته عيسى الدين maalin kasta show حياته حياته waxaan jeclahay barnaamijkaas عيسى الدين maalin kasta show صاحب request ya qaba waxa waa ina barnaamijka soo badisiin barnaamijka marka soo badinaysiina ha ku soo badinina kaliya dadka caanka ah waxa also raadisiin dhalinyaro kale talent leh laakiin aan awoodin in talentigooda meel ay ku soo bandhigaan ay haysan tusaale ahaan dhalinyaro waxa jira wax qora wax raab gareeya farshaxan suubiya artist suubiya wax kasta suubiya laakiin si aan awood u lahayn in ay meel ku soo bandhigaan so dhalinyarta casuuma barnaamijkuna si fiican oo la soconaa aniga laftirkeygana waxaan jeclahay barnaamijka qayb qaato aan last xidhiidha Soomaaliyeed waxyaalaha bullshit ah u qeylinayaan aan ka dhaafnay bullshit iyo waxyaalaha real kala jiro peace and love taas ma bedelmayso taas hadartan laakiin waxa sameey karnaa qof walba qof walba nafsadiisa kafaala qaado tiisa taada qofka nafsadiisa bullshit ku hadla si u taala yep marka much love saaxiibkeyga oo ku jeclahay ilaahay ku amaansado respect brother peace and love brother hey walaalkay